gabdhaha xoogga dalka haddaan nahay inkastoo ay yarnahay haddana shaqooyin badan oo muhiim ah qabanaa hadda tusaale ahaan hadaa ka soo qaado howlgalkii ugu dambeeyay janaale aniga ka qayb qaatay haweenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin sugidda amniga iyo difaaca dalka qaarkood waxa ay ka dagaalamayaan furmaha jiid hore si sor loogu qaado doorkaas ayaa munaasabad lagu xusay sanad guuradii 20aad ee qaraarka tusigiisu yahay 1325 ee qaramada midoobay kaasi oo ku saabsanaa doorka haweenka ay ku leeyihiin amniga iyo nabadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana kulankan ka soo qayb galay wasiirka difaaca wasiiru dawlaha difaaca gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed mas'uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha agaasimaha idaacadda ciidamada saraakiil iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa oo ugu horeyn munaasabadda daahfuray ayaa sharaxay sida haweenka Soomaaliyeed ay lafdhabar ugu yihiin ciidanka xoogga dalka waxaan ku faraxsanahay in maanta horteeda ay joogaan gabdho Soomaaliyeed oo saraakiil iyo saraakiil xigeenaba leh kuwaasi oo dariska u qaaday inay dalkooda difaacaan waa wax weyn lagu faano waa guul walow numberkii lagu talagalay ama cadadkii aad ka mudnaydeen bulshada Soomaaliyeed aanad weli wada gaarin haddana waxaa ka shaqayn doona wasaaradda gaashaandhigga in haweenku ay noqdaan kuwa lafdhabarta u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waxaan ballan qaadaynaa hadda ciidamada la qaadayo ha noqdaan saraakiil ama ha noqdaan saraakiil xigeen ama hadbleyda inay haweenku doorkii ay ku lahaayeen ay ka qaataan Maama Batuula Sheekh Axmed Gabale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah ka ciyaaraan sugidda ammaanka iyo difaaca dalka dib u kabashada marka dawladnimada Soomaaliya ka hana qaaday waa mid ku timiday dadaalka iyo halganka gabdhaha Soomaaliyeed waa mid laga dheehan karo taariikhdana ay qori doonto ama ay xusi doonto markii waddankaani burburay doorka gabdhaha Soomaaliyeed ay qaateen run ahaantii adduunyadu dhibaatada way soo wada martay laakiin adduunka marka taariikhda dib loo jaleeco meelihii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen ma jirto doorka haweenka Soomaaliyeed ay galeen dumar galay oo adduunka ku nool ma laha wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ugu dambeyn munaasabadan soo xiray ayaa ballan qaaday in sare loo qaadi doono fursadaha haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka gabdhaheena Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidamada qalabka sida khaas ahaan ciidamada xoogga dalka oo diyaar u ah naftooda inay u huraan dhigooda u daadiyaan jiritaanka midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gabdhaheena Soomaaliyeed oo ku jira front line oo ka qayb galay dagaalka front line-kiis ka qayb galay haddana la joogo waxaan leeyahay leedama hilmaami doono insha Allah oo idinkana waajibkiina guta anaga dawlad ahaan waa idin garab taaganahay Cabdi Fataax Cabdi Qaadir Aqyaar SNA Radio magaalada Muqdisho